Assalaamu calaykum nabaday daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay ee wargeysyada caalamku ay maanta ka qorayaan maadaama suuqii sanadka cusub ee January uu furmayo maalinta Axadda. Aan ku bilowno kooxda Barcelona ayaa xagaaga dambe doonaysa saxiixa 27 jirka daafaca dhexe uga ciyaara kooxda Man City iyo xulka qaranka Isbaaniya ee Emerick Laporte. kooxda Pep Guardiola hogaaminaya Manchester City ayaana boos joogta ka haysan imanka Emerick Laporte. Emerick Laporte waxaa si weyn u xiiseynaya macalinka cusub ee kooxda Barcelona Xavi Hernandez kaasoo doonaya inuu kooxdiisa ku xoojiyo xagaaga dambe si uu xal ugu helo dhibaatada daafaca ee kooxdiisa ay sanadkan ugu dambeeya dhex dabaalanayso. dhanka kale kooxda ay milkiilayaasha Carbeed ama boqortooyada Sacuudi Arabiya iska leedahay milkiyadeeda ee Newcastle United ee ka dhisan dalka Britain ayaa xiise weyn u qabtaa Aaron Ramsey xidigii hore ee xulka qaranka Wales iyo kooxda Arsenal kaasoo iminka ku sugan kooxda Juventus isla markaana boos joogta ka haysan. Sidoo kale waxaa xiiseynaya kooxaha West Ham United iyo Everton. dhanka kale Arsenal ayaa doonaysa labada weeraryahan ee u kala ciyaara Real Sociedad Alexander Isak iyo sidoo kale kooxda Lille ee ka dhisan wadanka Faransiiska waa xidigaha lagu magacaabo Jonathan David kuwaasoo bartilmaameed weyn u ah xagaaga dambe inay la soo wareegto. sidoo kale waxaa xiiseynaysa kooxda Liverpool ee iyaduna xiiseynaysa. kooxda Tottenham ayaa laga yaabaa inay suuqa January isku dayi doonto saxiixyada Paul Dybala oo Juventus u ciyaara iyo Stanka D Virgil iyo Perisic oo iyaguna Inter Milan u ciyaara hadba sidii ay u hesho weeyaan. Tottenham dibadhis weyn baa ku socda sidii ogsoonahay tababaraha weyn ee xulka qaranka ee soo leeliyay xulka qaranka Italy iyo kooxda Chelsea, Inter Milan, Juventus iyo Antonio Conte ayaa maamula kooxda Tottenham kaasoo dibadhis weyn ku wada kooxda. dhanka kale waxaa la soo warinayaa inay kooxda Liverpool xiiseynayso 20 jirka weerarka uga ciyaara naadiga Arsenal iyo xulka qaranka Ingiriiska ee Bakayoko Saka kaasoo heshiiskiisu dhacay 2024. tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa xiise weyn u qaba da'yarka Arsenal isla markaana taageero weyn u ah ee ninka lagu magacaabo Bakayoko Saka. Newcastle United milkiilayaasha Carbeed sidoo kale waxay aad u xiiseynayaan garabka Barcelona iyo qaranka Faransiiska Ousmane Dembele kaasoo diiday in heshiis cusub saxiixo kooxdiisa Barcelona. ugu dambeyntii waxaa la soo warinayaa inay kooxda Juventus daafaceeda lagu magacaabo Matthijs de Ligt oo ninkii aadka u qaaliga ahaa ee xulka qaranka Holland iyo naadiga Juventus uu isaguna ka helayo xiise weyn iyo bartilmaameedna uu yahay kooxda Barcelona iyo Xavi Hernandez. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha suuqa maanta oo Jimcaha.